mashaariicaha kala duwan ee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka hirgelisay degmada Mule ee gobolka Faafan ayaa waxaa booqday koox qurbo joog oo u dhalatay deegaanka kuwaas oo ka yimid arriga Mareykanka. qurbo joogtuna uu horkacay wasiir ku-xigeenka xafiiska kheyraadka biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdiraxmaan Urraagte ayaa socdaalkooda booqashada ah waxay ku mareen mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin buundooyinka sida casriga ah u dhisan ee xukuumadda deegaanku ka fulisay togaga Jarar iyo Faafan oo labada dhinac ka kala xiga xarunta degmada Mule kuwaasoo ka hor inta aan la fulinin ay dhibaato adag ka jiri jirtay isu socodka bulshada iskaga kala goosta dhinacyada labadan tog iyadoo oo xilliyada roobku da'ana aanba la mari jirin ilaa inta roobku ka qaadayo. waxaa kaloo ay qurbo joogtani soo booqdeen goobaha degmada Mule ka hirgelinaysa mashaariicaha biyo baad beer iyo caafimaad ee dejinta loogu samaynayo qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale dhammaan mashaariicda horumarineed ee horey looga fuliyey degmada Mule sida mashaariicda waraabka iyo biyogelinta iskoolada iyo xarunta caafimaadka degmada. booqasho kadibna waxay qaar ka mid ah xubnaha qurbaha ka yimid oo warbaahinta la hadlay ay cadeeyeen inay si aad ula dhaceen horumarka ay arkeen sidaas awgeedna waxay baaq u direen dhammaan bulshada u dhalatay deegaanka ee ku dhaqan daafaha caalamka inay soo maalgashadaan dhulkooda hooyo. hadda waxaan dul joognaa toga Jarareed oo biyihii ka ay socdayeen buundadiina taa ay tahay annagoo ka nimid xaggan iyo Mule iyo laba ceel horena aan soo aragnay imikana ceel halkaan ku aragnay oo horumarka ah. waxaan soo maray iskoolkii waxaan soo maray isbitaalkii qaybtii dhalbada waan soo aragnay qaybtii bukaanjiifka waan soo aragnay qaybtii emergency-ga waan soo aragnay sidaas horumarkii wadanku u socdaa. marka dhammaan waxaan u sheegayaa qurbo joogta wadankooda hooye inay maal gashadaan ayna ku soo hirtaan wadankooda yani heerka uu maraya maanta waa heer aad iyo aad u sareeyo weeye. waxaa naga farxad weyn noo ah maanta inaanu maaragtay wadankeenii si toosa oon cidina nooga warramayn cidina nooga sheekanayn aan u soo aragno intii waqtigu noo saamaxay degmooyinkaanu soo booqannay maanta. meeshanan hadda joogaa waxa weeye waa qabaleega quraan ee ka tirsan degmada Mule oo saan idin carabaabay maanta degmooyin ka mid ah gobolka Faafan aan maraynay. maaragtay nabadii horumarka jira wax la xisaabi kara maahan ishoon baa macalina qof soo arkay baa maaragtay ka hadli kara oo wax ka sheegi kara. marka dhammaan waxaan ku bogaadinayaa qurbo joogteena deegaanka inay wadankooda soo booqdaan soo dalxiisaan kii awoodeeda dhaqaalana maaragtay uu soo maalgashado oo maaragtay timaadaan. xubnaha qurbo joogta ayaa intay socdaalka ku jireen waxay ku damaashaadayeen quruxda dhulka iyo nabadgelyada deegaanka ka hana qaaday iyagoo waqtiga ku qaadanaya goobaha kaymaha quruxda alla ku manaysay ee jidka hareerihiisa ee u dhaxeeya degmooyinka Mule iyo Qabri Bayax kuwaas oo xilligan ah mid rooban oo soo jiidanaya quruxda ka muuqata awgeed qulubta cid kasta oo timaada. dhulkani awalba mid saa qurux badan ayuu ahaa balse sidoo kale looguma dalxiisi jirin sabab dhanka ammaanka ah waxaana sidaan ognahay amni darradii jiri jirtay meesha ka saaray isku duubnida shacabka deegaanka iyo ciidanka booliska gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay horkacayaan hogaaminta aragtida dheer ee majaraha deegaanka haysa.